sharma boy heer waxa uu maraya oo quraanka ku hayso yani heestiisa inuu quraan ku soo dhaxdaro hadaad rabto iska indhatir fiidiyogan oo isdhaafi laakiin ilaahay makhraati ayuu ka yahay inaan ku soo gaarsiiyo muuqaalkan sharma boy heestiisa ugu dambeysay erayadiisa waxa uu ahaa sharciga bara uu soo dhaafay alamtara soo maahan aayad kamid ah quraanka hadaad dhihi lahayd kelmadan waa kelmad carabi ah laakiin waa hadalkii ilaahay subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asxaabtayda maanta waxaan idin hayaa video oo iga yaabiyay. Maanta waxaan ka hadli rabaa arrinta Sharma Boy oo maalmahan baraha bulshada lagu hayo inuu ku soo heesay kalaamkii Allah subhanahu wa ta'ala quraanka kariimka uu dhahay uu soo dhaafay alam tara. Aayad quraan waaye uu soo dhaafay alam tara. Marka waxaan halkan ka sheegi rabaa in uu u gafay quraanka kariimka iyo kalaamkii Allah subhanahu wa ta'ala. Marka asxaabay videogan ila daawada maanta meherkaas ayaan marayna oo awliba aan u aamusanahay 5 bari 6 bari ayay taala heestaas YouTuber badan ayaa reaction ka bixiyay heestan aniga hata waan soo degsaday like waan saaray markaan arkay videogan ayaan ku laabtay oo like aan ka qaaday. marka asxaabay YouTuber badan sida CK liaat dad badan aan arkay oo reaction ka bixinay heestaas ilaa hadda kama bixiyay hal qof oo si toos ah kelmadaas u abaaray malahan. maanta ma ilaaha ayaa Sharma Boy ka jeclaanaysaa waxba qiil ha u raadinin. hal su'aal oo kale ayaan ku weydiinayaa iiga su'aashaanid ila dhageysta marka asxaabtayda jawaab oo kale ah. heestaasi markii aad maqashay fanaankaas markii uu marayay uu soo dhaafay alam tara ilaahay baan kugu dhaashay maxaaniyadaada ku soo dhacay aniga waxa qalbigayga ku soo dhacay inay quraanka ku jirto alam tara laakiin kuma mashquulin waa meesheeda. laakiin haday ku soo dhacday in ay aayad quraan tahay waxaad ogaataa hadii aad heestaas like saarto adigoo og in uu quraanka ku jiro waxay ka dhigan tahay waxaan ka helay quraanka inaad hees ka dhigto taasna wallahi waa dambi aad subhanallah waan dambiyay ilaahay maaf ilaahu dambigeena dhaaf walal qaali ha isdhihin dhalinyaranimo kuma dhibanaysid. meeqa dhalinyaro ayaa subaxdii baxeen gadaalna aanan u soo laabanin. meeqa dhalinyaro ayaa sariirtooda seexdeen iyagoo rajeynaya nolol dheer haddana aan ka soo kicin hurdadii. meeqa dhalinyaro ayaa isbitaalka loo qaaday si loo daaweeyo balse qabriga la geeyay si loo asturo. meeqa dhalinyaro ayaa subaxdii dharkooda xirteen haddana aanan iska bedelin oo dhar cad loo xiray abidkood. meeqa dhalinyaro ayaa gaarigooda qaateen haddana aanan ka soo degin. walal qaali geeridu ma taqaano wuu yar yahay uu weyn yahay waa dhalinyaro midnaba ma taqaano. maxay tahay marka sababta aan u leenahay bari ayaan toobad keenayaa markii aan weynaado bari ayaan toobad keenayaa maya hadda ayaad jaanis haysataa walaal toobad keen jaaniska haddaan haysanaa inaan toobad keeno waa muhiim. marka nabiga ku salli walaal qaali sallallahu alayhi wasallam ayaa tiri sax sallallahu alayhi wasallam nabiga ku salli sallallahu alayhi wasallam ayaa tiri sax kelmadahaas kooban waxaad ka heshay ilaahay ayaa toban mar ugu naxariistay 10 darajo ayaa kor lagu qaaday 10 dambi waa lagu dhaafay 10 xasanana waa lagu qoray. sidoo kale haddii aad walaalka ama saaxiibka halkan ugu wacdo ood ku dhahdo ku salli nabiga uu ku salliyo waxaad helaysaa 10 mar kale inuu ilaahay ugu naxariisto 10 mar oo kale inuu darajo kor lagu qaado 10 xasano ilaahay ku qoro 10 dambiga laga jaro. waayo nabiga ayaa waxaa u leeyahay abdaalu cala khayri fa'al qofkii khayrka tusaa dadka waa asaga uu sameeyey oo kale yani ajarkiisa oo kale ayaad leedahay. haddii aad calaamada adariska daawatana ilaahay ayaa og inta wax ka helayso waayo lama yaqaane halkii mar aad daawatay inta qofku gaari karo salliga nabiga abdadaali markii aad sariirtaada tagto inta aadan seexan ka hor haddii aad arrin aadan samaysid waxaad tahay ahlul janno meelaha arrinkaas aad sameynaysid ogid ayaad jannada u galaysaa. nabiga sallallahu alayhi wasallam asaga oo saxaabadii dhex fadhiya ayuu waxa uu yiri waxaa soo geli doono in ahlul janna. asxaabay aniga horta waan idin soo gaarsiiyay videoganaytii sii share gareeye asxaabtiina gaarsiiye kusoo qoro commentiga sallallahu alayhi wasallam nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. marka asxaabay khayr badan ayaan idin rajeynayaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. walal qaali ha isdhihin dhalinyaranimo kuma dhibanaysid. meeqa dhalinyaro ayaa subaxdii baxeen gadaalna aanan u soo laabanin. meeqa dhalinyaro ayaa sariirtooda seexdeen iyagoo rajeynaya nolol dheer haddana aan ka soo kicin hurdadii. meeqa dhalinyaro
ayaa isbitaalka loo qaaday si loo daaweeyo, balse qabriga la geeyay si loo asturo. meeqa dhalinyaro ayaa subaxdii dharkooda xirteen haddana aanan iska beddelin oo dhar cad loo xiray abidkood. meeqa dhalinyaro ayaa gaarigooda qaateen haddana aanan ka soo degin. walaal qaali, geeridu ma taqaano, wuu yar yahay, uu weyn yahay, waa dhalinyaro, midnaba ma taqaano. maxay tahay marka sababta aan u leenahay beri ayaan toobad keenayaa markii aan weynaado, beri ayaan toobad keenayaa? 10 darajo ayaa kor lagu qaaday, 10 dembi waa lagu dhaafay, 10 xasanana waa lagu qoray. sidoo kale haddii aad walaalka ama saaxiibka halkan uga wacdo ood ku dhahdo ku salli nebiga, uu ku salliyo, waxaad helaysaa 10 mar kale inuu ilaahay kuu naxariiso, 10 mar oo kale in darajo kor lagu qaado, 10 xasano ilaahay kuu qoro, 10 dembina lagaa tiro. waayo nebiga ayaa waxa uu leeyahay addaalu cala alkhayri ka faacili, qofkii khayrka tusaa dadka waa asaga oo sameeyey oo kale, yacni ajarkiisa oo kale ayaad leedahay. haddii aad calaamadda adaliska taabatana ilaahay ayaa og inta wax aad helayso, waayo lama yaqaane halkii mar aad taabato inta qof uu gaari karo. salliga nebiga aan ku dadaalno insha allah. markii aad sariirtaada tagto inta aadan seexanin ka hor haddii aad halkan arrin samaysid waxaad tahay ahluljanno, micnaha arrinkaas aad samaynaysid awgeed ayaad jannada u galaysaa. nebiga sallallahu calayhi wasalam asaga oo saxaabadii dhex fadhiya ayuu waxa uu yidhi waxaa soo geli doono nin ahlujanno ah. kadib saxaabi ayaa soo galay. maalin labaad ayuu nebiga sallallahu calayhi wasalam waxa uu yidhi waxaa soo geli doona nin ahlu janno ah. isla saxaabigii ayaa soo galay. maalin saddexaad ayuu nebiga sidii yidhi, isla saxaabigii ayaa soo galay. saxaabi saxaabada ka mid ayaa waxa uu yidhi waa inaan soo ogaadaa ninkan waxa uu dadka kala dheer yahay oo markuu soo galayaba loo dhahaa waa ahlu janno. 3 maalmood ayuu la joogay saxaabigii, wax dadka dheerna muusan ku arkin. kadib ayuu weydiiyey niho maxaa samaysaa ayuu yidhi. saxaabigii waxa uu yidhi markii aan sii seexanaya ayaan dadka oo idil cafiyaa. haddaba walaal qaali, markii aad sariirtaada tagto intaadan seexanin ka hor haddii aad dadka oo idil cafiso ogow waxaad tahay qof ahlu janno ah. haddaba muuqaalkan haddii aad qof gaarsiiso uu ku dhaqmo